waa munaasabad lagu weyneynaya kowda luuliya 66 sano guuradii ka soo wareysay xilligii gobolada koonfurta dalkeenu ay ka xoroobeen gumaysiga Talyaaniga ee gumaysan jiray sanadkii 1960 sidoo kalena ku beegan Israaciil ama midowgii gobolada koonfurta ee waqooyiga dalkeena kowda luuliya sanadkii 1960 ayaa lagu qabtay magaalada Beledweyne caasimadda gobolka Hiiraan. munaasabadani waa mid si maqaamkeedu sareeyo u soo agaasimeen madaxda maamulka gobolka ee kan degmada Beledweyne isla markaana lagu qabtay barxadda aqalka madaxtooyada gobolka Hiiraan. Beledweyne ayaa waxa ka qayb galay dhammaan madaxda maamulka gobolka kan degmada xubno ka mid ah labada gole ee dowladda Hirshabelle, la taliyaha arrimaha ganacsiga maalgashiga dowladda Hirshabelle, agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka Soomaaliya Hirshabelle, saraakiisha ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo kuwa hiil walaal ah ee ka socda dalka Djibouti. mas'uuliyiinka kala socotay maamulada degmooyinka Batabaa, Gadarjir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Beledweyne ayaa ka qayb galay munaasabadan lagu weyneynayay 66 sano guuradii ka soo wareysay xilligii gobolada koonfurta dalkan ay ku xoroobeen gumaysiga Talyaaniga. ugu horeyn waxaa munaasabada kelmadeed isugu jira hambaliyada kowda luuliya iyo muhiimadda bulshooyinka Soomaaliyeed ee u leedahay xuska kowda luuliya madasha si wada jir uga soo jeediyay maayirka degmada Beledweyne Nadar Tawax Maalin, gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cusmaan Cali Sow, gudoomiye xigeenka cusub ee siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Ibrahim Cusmaan Cali, mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jira heer degmo, heer gobol iyo isku duwaasha wasaaradda Hirshabelle ee gobolka Hiiraan oo ka mid yahay isku duwaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Hirshabelle ee gobolka Hiiraan Cawil Jibriil iyo mas'uuliyiin kale. caawo waxaan isleeyahay waa xaflad Soomaali meel kasta ay joogto ay u dabaaldegayso 66 guuradii xorriyadda Soomaaliya. waxaan isleeyahay habeenada way ka gedisan tahay. waxaan ku jirnaa wiigii xorriyadda, waxaan ku jirnaa wiigii dabaaldega, waxaan ku jirnaa wiigii farxadda. bishaan way ka gedisan tahay bilaha kale. hadal badan ma jiro. dhammaantiin mar labaad iyo mar saddexaad hambalyan idin leeyahay Soomaali meel kasta ay joogto. xaqiiqdii waa habeen aad ku weyn dhammaan qof walbo Soomaaliyeed meel walba aad joogo. waxaan ugu hambaliyeynayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed. waxaan u hambaliyeynayaa ciidamadii u soo halgamay in caawa loo dabaaldego xorriyaddu kuma imaado ciyaar xaqiiqdii waxaa u soo dhintay dhalinyaro badan oo wiilal badan ayaa u soo dhintay. waxaan u hambaliyeynayaa qof walba oo qayb ka ahaa in maanta si xorriyadda lagu xalfadeeyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. waxaan leeyahay dhammaantiin Soomaaliya hamidooda waa mahadsantihiin. waa habeen farxad noo mudan. waa habeen 66 sano aan xorriyad haysano. gabagabadii anigoo ku hadlaya afka dawladda waxaan leeyahay ama afka shacabka Soomaaliyeed, Soomaaliyeed toosoo isku tiirsanadey hadbanigiina taagdarane taageera weligiine. markii laga soo bilaabo 26 Juun oo gobolada waqooyi ay ka xoroobeen gumaystii Ingiriiska, kowda luuliya oo caawa ku beeganna ay ka xoroobeen goboladii koonfurta iyo caawa oo isku ah midowgii labada gobol. halkaasna lagu yeegleelay jamhuuriyaddii Soomaaliyeed oo ugu horreysay. farxad weyn ay noo tahay in halgankaas miro dhalay iyo guushaas taariikhiga ah odayaashii dhaqankii saraakiishii cid walba oo qayb ka ahayd waa ka mahad celinaynaa. waxaa jira dhalinyaro annagoo kale ah, dhaqan annagoo kale ah, odayaal iyo bulshada qaybaheedii kala gedisan oo caawa aan haysan farxaddan iyo munaasabadan oo kaleeto oo kooxihii khawaarijta al-shabaab ay kor degan yihiin xaqiiqatan. meeshaan waxaa la iskugu yimiday waa wax Soomaali wada leedahay. waa soo jireenkii Soomaaliya midnimadii iyo xorriyaddii Soomaaliyeed ee hore u soo jirtay. Soomaaliya ha midowdo. waa caawa la iskugu yimiday waa wax Soomaaliyeed ma ahan wax qof gaar ah oo dan u leeyahay. soo dhawaada. haddii abiyahan tahay calanka markaa la qaadanayo waa laga hadlay. kana saar ka nasiibaalay inta Soomaaliya markaan joognan waa laga hadlay. laakiin aan soo gaabinayo waxaan leeyahay Soomaaliya idil kiimba haddii aadad islaamaho shahaado qiraayo oo ummadii nabigii oo ab xalaalatihi haddaydan umushi markay foor la asqowday oo indhihi jiladmayn oo is ilowday ahayn war ururka iyo dawladnimada iyo nidaamka u socda ilaasha. Assalaamu calaykum.
agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Maxamed Shuuriye abaandulaha qaybta 7-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan kusumaha taliyaha qaybta kore Cabdullaahi Barre Cilmi gudoomiye xigeenka cusub ee siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Ibraahim Ismaaciil Calmi iyo saraakiil ka socotay ciidamada Hiilwale ee Jabuuti ay ka qayb galay munaasabadan lagu weyneynayay xuska Kowda Luulyo ee lagu qabtay beledweynaha ayaa soo wada jira madasha kelmado hambalyo iyo waliba muhiimadda bulshada Soomaaliyeed u leedahay xuska Kowda Luulyo iyo saraaci gobolada koonfurta waqooyiga dalkeena madasha ka soo jeediyay munaasabaduhu toddobaadkan waa isdul saarnaayeen 26 Juun waxay ahayd israaca gobolada waqooyi 27 Juun 1977 dowladda walaalaha aynu nahay Jabuuti ayaa xornimada ka qaadatay gumeystigii Faransiiska Kowda Luulyana waxay ka dhigan tahay israaca labada gobol ee waqooyi iyo koonfur waxaana laga joogaa 66 sano waa kolka toddobaadkan oo kale uu leeyahay abwaan Cabdullaahi Suldaan Timacade sareeyo manusqaamow siduu yahay aan eegne ka nasiib ka nasaar wallahi afka ciidamada qalabka sida hambalyo mar labaad hambalyan leeyahay halkan waxaan ka salaamayaa si gaara madaxweynaha federaalka Soomaaliyeed iyo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed anigoo afkooda ku hadlayo waxaan leeyahay hambalyan leeyahay mar labaad hambalyo waxaa sharaf ah inaan halkan soo joogsado aan ka hadlo jiro joogaan ilaahay Soomaaliya jirto hore u socda isku dubnaada caawa haweenay waa Kowda Luulyo waa israaci labada gobol waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaaliyeed meel kasta jooga hambalyo gaar ahaan shacabka reer Hirshabelle reer beledweyne waxaan leeyahay hambalyo waqtigan ugu awgeed ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka gobolka dowladda Hirshabelle Maxamed Xuseen Maxamed Waadi Share la taliyaha arrimaha ganacsiga maalgashiga dowladda Hirshabelle Maxamed Axmed Nuur Foday iyo xildhibaan aadan kala diray oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda Hirshabelle ayaa soo wada jira madasha ugu soo jeediyay hambaliyada xuska Kowda Luulyo iyo muhiimadda u leedahay bulshada Soomaaliyeed xuska Kowda Luulyo iyo waliba israaci gobolada koonfurta iyo waqooyiga dalkeena isla markaana bulshada Soomaaliyeed kula dardaarmay inuu u diyaar garoobaana doorashada qof iyo cod ee ka socota dalka Kowda Luulyo 66 guuradii ka soo wareegatay markii ay qaateen gobolada koonfur xorriyadda isla markaasna ay midoobeen labada gobol waqooyi koonfur waa habeen taariikh weyn ah waxa kale oo caaw farxad weyn ah anigoo ku hadlaya magacayga magaca xildhibaanada dowladda Hirshabelle magaca golaha wasiirada ee dowladda Hirshabelle inaan u jeedo bulsho reer beledweyne iyo maamulka gobolka oo isku xiran anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca madaxweynaha la taliyaha u ahay madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Gudlaawe caawa waxa farxad inaan joogo magaalada beledweyne oo lagu xusay 66 guuradii midowgii labada gobol maadaama midowga yiri waxaan halkan ka dhihi lahaa walaalayaal waxa la ka rabaa midnimo nabad daris wanaag inta kadib waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha aan dhihi karno waa madaxweynaha sanadkan dadka dib ugu celinayo gacantooda inay doortaan dadkii matali lahaa walaalayaal waxaa la rabaa usbuuca soo socda in la qaato la isrejistareeyo la qaato qaarka cod bixinta insha Allah halkaas ayaan waxaan ka heli doonaa midnimo iyo qof aan hogaamiyo iyo qof aan mataqaana wax ku darsano caawo munaasabadu waxa waayo Kowda Luulyo 66 sano kadib markii Soomaaliya ay heshay calan ay ku midaysan tahay insha Allah waqtigu waa iska gabaabsi waxaan noo muhiim ah caawo inaan ku midaysanahay xaruntii gobolka Hiiraan anagoo dad midaysan oo israno dhammaan Soomaaliya saasan u rajaynaynaa Hiiraan ha isku toosto saasan idin rajaynayaa Khalid Mahad su'aal kaase warbaahinta qaranka beledweyne